أنا كادوبي دوبيا بسم الله الرحمن الرحيم halkan ninka aan joognay waa iskaashtada gaaguraha malabka galgal iyo degmada Goljanno aad baan idin salaameynaa waftiga maanta noo yimiday iskaashtadani dadaal fara badan bay muujisay oo aan maaragtay gaaguraha kuwii hore maaragtay dhaqameedka ahaa iyo kuwan casriga ah maaragtay hadda waan haynaa waxaan u mahad celinaynaa xafiiska LLRB-da oo maaragtay gaagurahan casriga ah iyo dharkan hadda aan xidhanahay baa noo keenay inkastoo aad noogu yar yihiin shinnidu waxay u baahan tahay waxa qofka bini'aadamku u baahan yahay u baahan tahay biyo u baahan tahay xarb bay u baahan tahay waxay u baahan tahay wixii ay ka sameyn lahayd malabka ay u baahan tahay hadda qaabkan aad arkayso waa xanjo iyo wax ay isku dhijisi weeyaan marka diraacda waqtigan ku jira jiyaalka oo kale waxay u baahan tahay maadaama uu ubaxii iyo wixii manka ahaa aan lahayn waxay ka samaysaa buunshiga ka samaysaa iyo waxyaabo maartay daqiiqda iyo wax ka samaysaa hadda halkan aan joogno wax biyo mal oo biyo gaarsiin ma soo gaadhin degmadu aad bay qasabadu noogu fog yihiin shinnidu waxay ku baabaadaa jiyaalkii maartay maqaaxyaha iyo maartay shaaha iyo biyaha meelaha la dhigay ku baabaadaa haddii markaan helayno hal rooto ama laba rooto hal rooto haddaan heli lahayn oo maartay halka biyaha loogu shubo maartay iyadana marka loo sii qaybiyo oo gaagur walba horteeda loogu xidhi lahaa maartay baaqul yar loogu xidho ay hel lahayd ma naga baabaadeen shinni fara badan oo maalintiiba intaa oo xabaad arkaysa oo ku dhimanaysa maartay ku dhiman iyadu biyo raadinaysa dhimanaysa marka waxaan codsanaynaa xafiiska maamulka degmada xafiiska LLRB-da xafiiska iskaashatooyinka xafiiska khudayso dhan waxaan ka codsanaynaa in loo sameeyo tusaale ahaan imika hool haddaan heli lahayn bacdan madarta hadda way go'go'day waa hal baca marka wayna yar tahayba kuwa kale oo dhan waxay suran yihiin meel cadceed ay suran yihiin geedka markuu jiyaalku dego caleenta ka daadata marka haddii imkaan heli lahayn hool ballaaran oo jiingad ah oo sidoo kale oo jiingad una waxa weeyaan mayna ka tagteen biyo haday helaad meel marka wax soo saarkeeda badan lahaa marka waxaan codsanaynaa in loo sameeyo rootada koow waan u baahanahay waxaan u baahanahay gaaguro dheeri aan u baahanahay oo hadda dhowr ilaa 30 shiniyood oo waxa jira naga baxsaday baa jira oo inta soo baxeen marka ay gaagur fiican waayeen naga tagay marka hadii gaaguraha sidoo gudoomiye hore u sheegay gaaguraha waan u baahanahay ilaa 100 xabaan u baahanahay kuwan casriga ah marka wax soo saarkeedu wuxuu gaari lahaa ilaa maartay deegaanka dhan buu gaari lahaa hadda waan ku filaanay degmadan malabka aan soo saarno inta ugu badan waxa weeye degmada naga iibsata oo maartay naga iibsata malka hadda waa kanaan hayo markaan joogno bishiiba 2 jeer baan ka banaynaa bishiiba 2 jeer ayaan ka banaynaa waxa weeyaan waa marka gugi ay tahay waqti jiyaalkiya maadaama nabiyana ayna helaynin wixii ay ka sameyn lahaydna ayna helaynin jiyaalkii oo kale aad maartay lama banayn karo oo waxa weeye 3 bilood ama 2 bilood hal mar bay noqon laakiin gugi oo kale marka wax haysato iyo biyo haysato waxa bishiiba 2 jeer 3 jeer baa laga banayn karaa marka service-kan la siiyay aad baan ugu mahad celinaynaa dawladda iyo maartay xafiiska naga soo gaadhay in loo sii kordhiyana waan codsanaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ayo waad mahadsantahay Axmed Haadi marka hadda imika tusaale ahaan malabka aan arkeed gacanta ku haysid waxa weeyaan waa malab aad u qurux badan oo cadin iyo guduud yani waa xabag barsho iriha marka wax soo saar intee leeg baadi ka soo gala waxa weeyaan hadda umba horta gaaguraha casriga aan helay markii hore waxaan ku shaqayn jirnay gaagurahaas aan ku qarin duuga gaagurahaasna way iska yar yihiin marka manaafacaadkeedu hadda umbu hor leeyahay waxa weeyaan marka aan maaragtay banayno wax hadda de maaragtay aan maaragtay nagu filan oo maaragtay baa naga soo yaa maaragtay naga soo baxa malabkan hadda aad aragtay waa uura dhaabkan hadda uura waa guduud waxa weeyaan markuu uu cusub yahay waa cadinka markuu saa u raagana markuu waa casiin weeyaan moogtahay صح markuu casiinka gaaro markuu uu fiican yahay weeyaan wax soo saarkeedu hadda hadii gaaguraha nagan dhan ay casri ahaan lahaayeen aad buu maaragtay wax soo saar ku fiicnaan lahaa marka gaaguraha yararkii ma qaadayaan maaragtay 5 dhaab 7 wax saasi qaadayaan tan laakiin 30 iyo ayaga tan oo kale 30 iyo 2 dhaab bay isku sameyn kartaa halka ay gaagurta maaragtay hore ee duugan haysanay 6 dhaab 7 dhaab ay ku sameynayso marka hadii gaaguraha nagu nooc wada ahaan lahaayeen wax soo saarku aad buu badan lahaa صح marka awal hore maadaama kuwa isticmaal jiray wax soo saarku iska yaraa oo maartay waxna dhaafsan ma ahayn laakiin hadda markii gaaguraha loo keenay waxa weeyaan aad bay maartay wax soo saarku u fiican yahay waqtiga aan banaynay maartay malka aan soo saarno waxa weeyaan wax soo fiican baan soo ay Axmed Haadi waxaan ku weydiiyay xilliga jiilaalka kale waxaad sheegtay in meelaha maqaaxiyaha yani shaaha jacaylkiisa iyo biyaha iyo ay ku baaba'do hadda iminka meelaha maqaaxiyaha kale
jiilaalkii haddii biyogelin ama la idin sameeyo laba haloo roota ah maxaad ku qaban lahaydeen ood u samayn lahaydeen halkan baa loo dhigi lahaa roota halkaas la dhigi lahaa kadib gaagur walba halkan baa loo suri lahaa maaragtay baaqul yar baa loo suri waxaa loo dhex dhigayaa maaragtay geedo yaroo maaragtay wax yar maaragtay baa loo dhex dhigayaa ay ku dul istaagto ay ku hor istaagto halkay ka intay ay ku intaasoo distance ay maanta oo dhan ay biyo ku maqnaan lahayd gaagurtii ka soo baxaysaa halka biyo u jira cabaysaa kadib markaa wixii kale service-kii bay dooraysaa ay kale ay maaragtay oo biyo ku mashquulayso iyada nafteedina kuma dhimanayso marka waxa imika noogu muhiimsan waa biyo weeyaan hadda meelaha maqaaxiyaha tagto adiga koob shaaca dalbata kama cabi karaysid oo iyadii baa kugu waxaad moodaa hadda gaagurina dhax fadhiyaad moodi maqaaxiyaha marka jeelka oo kale iyo gaaguraad hor taagantaad moodi si u joogto si ugu baaba'ayso marka idinkama baaba'ayso shinnidiinu waxay noqonaysaa kolkuu roobku doo shinni tayo leh shinni markuu roobku doo kale waxaan weeyaan de waa aniga hore soo sheegay waa shinni ku mashquulsan inay malab soo saarto oo ayna biyo doonanin ayna ku soo rafaadin marka bishii 2 jeer 3 jeer baad ka banin kartaa gaagurta laakiin waqtiga jiyaalkiya iska daa waxaad ka banaysatay iyadii baa baaba'ayso oon ugu dhamaanaysa maartay maqaaxiya ugu dhamaanaysa marka biyaha waxa iga ugu muhiimsan maartay waa biyaha weeyaan waxa inta noogu daran waa biyahaas oo iyadina baaba'ayso waxana ayna soo saaraynin laga yaabo inaad gaagurta hadda weydo markuu roobku doo inaad shinniba inaad weyn baa laga yaabaa wax dhintay wax ka baxa ay noqotaa laga yaabaa gaagurta hadda shinniba ku jirto malab baa ku jira waqtiga jiyaalku adkaado wax dhinta iyo waxa ka cabaxay noqotaa laga yaabaa oo maartay maqaaxiya ku dhinta waqtiga gugiyana way buuxsamaysaa laba qayr saddex qayrina bixisa laga yaabaa marka hadda waad aragtaa malabkii hadda samaynaysaa gaagurta noocaas imika waa xagga jiyal baan galaynaa waqtiga uu jiyaalku maartay adkaado waxaan arkay gaagurtaas oo ay shinnidii inay ka baxday oo ama biyo la'aan uga baxday ama de intay baabaaday oo yaraatay qaybta marka shinnidu yaraato meesha kuma jiri karto marka biyihii iyo wixii service-ka ay ka samayn lahayd dhaabkan aad aragto waxay ka samaysaa waa xanjo iyo maaragtay boolsho iyo waxay ka samaysaa weeyaan xilliga jiilaalka ma daqiiq baad u dhigtaan oo yacni daqiiq may jeceshahay way soo gurtaa waxa waan soo dhignaa wixii awoodnada ah biyaha hadda tunkan uga soo qaadnaa ilaa 2 kilomitir baan maartay tunka ka soo qaadnaa oo halkan ugu keentaa haddana kuma fila intaas maalin kasta ma jeeni giraan mise intee lag bay cabbi kartaa baad u malayn ka badan hadda maalintii oo kale haddii gaagurahan aan wada waraabinayno ahno mid kasta baaqul looga hor xidho hadda gaaguraha hadda xidhan waad aragtaa waa ilaa maartay ilaa 40 weeyaan mashan gaaguraha ku xidhan marka haddii mid kasta de la yiraahdo baaquli ha loogu xidho waad garan kartaa 10 jeeni gaar kuma filaba nacam marka ilaa halkan gaagurta ma marka halkan waxa loogu shubayaa baaquli ay maanta ilaa bari ka cabto marka waxa weeyaan waan ku aad baan ku rafaadsanahay biyaha waxaan ka soo qaadnaa waad aragtaa fogida magaalada halkii yahay hal jeeni gaar ma soo qaadi kartid maanta marka xukuumadda iyo cidda ay qusayso maxaad ka codsan lahayd waxaan ka codsan lahayn in horta hal roota aan loo soo dhigo halkan oo biyaha loogu shubo si maaragtay aan anaguna maaragtay biyaha ku soo rafaadsanahay oo soo qaaditaankeeda halka jeeni gaarka anaga cabayna mise shinnadana siinayna marka waxa weey manaafacaadka oo dawa ah oo horumar ah ayay maartay sameynaysaa baashi ma ina naga dhimateen biyaha ay cabayso kolkay biyaha cabto shaqo kale qaban lahayd oo maartay intii biyihii ka nasatay shaqo kale qaban lahayd marka waxaan ka codsanaynaa xukuumadda maamulka dhimale ay waxaan ka codsanaynaa maartay maamulka in biyaha naloo keeno hadda biyaha haddii naloo keeni lahaa waxba nagama xumaadeen marka oo waxa weeyaan noloshu waa biyaba si anigu biyaha ugu baahnay biyo ugu baahan tahay nacam marka haddii aad aragtaan idinkaa noo garaabi lahaa dad maqaaxiya tagtaan oo kale maqaaxi walba waxaad moodi gaagurina dhex fadhido marka intaas ku soo gabagabeynayaa waxaan codsanaynaa in biyaha naloo keeno waxaan codsanaynaa gaaguraha in naloo biiriyo waxaan codsanaynaa maaragtay hadda maaragtay marka ulayay maaragtay gudoomiyuhu tan ulayay waa aragtaa hadda dhuxulaa ku dhex dhacay shinni waa ku dhex dhimanaysa gaagurta lafteediba in la gubata laga yaabaa marka qalabkii lagu ulayay haddaan heli lahayn marka dhuxulu waa waxyaalahan yar hadda waa dhuxushu waa ka ahaa hadda waa tashinaas hadda way dhimatay maaragtay waa oo daqiiqiiba iyo dhuxushu baa dhex galaysa marka qalabkii casriga ah ee lagu ulayay haddaan helno way ficnaan lahayd okay ayu waad mahadsan tahay hadda shaqadana si guud galaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وتمشي نسوق مجتو